ibada babbaxshe nidaal cidihi fino habar laga dhawrayo halyey qaran baatahe halyey qaran baatahe ibada babbaxshe nidaal cidihi fino habar laga dhawrayo halyey qaran baatahe halyey qaran baatahe bisha barakaysan khayrkeeda ilaahay hayna siiyo waxaynu ku jirnaa maalmihii barakaysnaa ee wanaagsanaa baynu ku jirnaa waxaa sidoo kale aynu ku jirnaa 10kii cishe ilaahay subxaana wa tacaala dambi dhaafka iyo raxmadda ilaahay uu ka dhigay ilaahay raxmadiisana weydiisanaynaa insha allah inuu ina siiyo walaalayaal sidaa wada ogtihiin waxaa jira iyadoo uu dhiigga islaamku xaaraan yahay marka horeba oo mar walba xaaraan yahay ayaa haddana wuxuu kasii xag jiraa xiliyadan oo kale in la daadiya weliba lagu daadiyaa wax aan micno lahayn walaalaha halkaa dabardalool ay dhibaatada ku dhex martay waxaan labada dhinac ugu baaqayaa horta dee inay tan oo kale ay ka waantoobaan mar dambe aanay dhicin tii dhacdayna toobadkeenna waa looga baahan yahay kuwii ku dhintayna ilaahay u naxariisto kuwa iminka u dhib ku qaba ee u xanuunsanaya ee dhaawac ka soo raacayna ilaahay ha u boogadhayo oo caafimaad ilaahay ha ugu bedelo dhibaatooyinka noocan way nagu soo noqnoqdaan haddaynu Soomaaliland nahay ama ceel baa la isku dilay ama meel wax maaragtay daaqa baa la isku dilay ama utun yaro aan saasa la isku dilay way nagu badan yihiin laakiin dadku hadday diinta ilaahay si fiican u garanayaan intaasoo kale may sameeyeen marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa dadkeena inuu fahansiiyo dhibaatada dhiigga muslimka uu leeyahay la daadiya maanta ka dhintayna waxba lama dhiman kii dilayna waxba lama noola waxa weeye waa kaa dhimay oo kugu dhimay taasoo kale walaalayaal yaani dib u dhicin dagaal hadduu dhaco oo la isdilo waa ogtihiin oo taariikhda waxa usoo joogteen in badan waa la heshiiyaa heshiisku wuxuu ku dhammaadaa kii dhintayna waa saasuu ku dhintaa kii wax dilayna saasuu dembigii ku raacaa oo ku noqdaa nin qof muslina dilay marka dhibaatadu waxay ku dambaysaa un gacanta kii wax dilay iyo kii la dilay dadku way heshiinayaa waa dad walaala ah waxana way dhamaanayaan marka waxa fiican adigu intaad hawsha noocana intaad ku foogan tahay oo dhiigga walaalka ah uu ku maartay aad ku foogan tahay inaad danaha kala gasho oo ilaahay subxaana wa tacaala uga toobad keento dembiga kamida dunuubta ugu waaweyn dhiig muslim oo la daadiyaa dembi ka weyn shirkigunba ka weyn dembi kale ka weyn ma jiro marka taa horta walaalaha waxaan leeyahay insha Allah dib ha ugu noqorina ilaahayna haydinka wixii aad geysateen hore haydinka kala cafiyo oo haydinka maartay taas ay naga dhamaato xukuumadda in ay ciidan dul dhigtaa waa qasab nabadgelyadu baryo maaha ninka nabadgelyada jabinaya in la baryo maaha waxa weeye ciidanka ugu xooga badan waxa la dhigaa barta ay dadku isku dilayeen ka nabadgelyada joojin waaya nabadgelyo darrada wadana waa la qabtaa oo gacan bira lagu qabtaa nabadgelyo baryo aynay ma jirto ciidan yu noo imanayo dawladii noo imanayo sheekaas ma socoto dadku markii dhiigooda u daadanayo waxa u dada oo u hela dawladda way dawladda aabiyo hooyoba ah iyada laga rabaa inay ciidan xoogan geysa halka laga rabaa taasi sida weeye ilaahay subxaana wa tacaala inaga qaboojiyo ta kale xanuunaa jira hal door fara badan baa sanadka inaga baxo waa ogtihiin sanadkan waa sanadka ugu dhimashada badnaa intaynu taariikhda dhow garanayno iyadoo aanay dhibaata dhicin in hal door intaas la eg inaga baxo ilaah waxaan uga baryayaa inuu jannadii horta firdawsi ahayd ka wada waraabiyo oo janno siiyo waa imtixaan waa la is imtixaamayaa ehelka iyo qaraabada ay ka baxeenna samir iimaan ilaahay ka siiyo xanuun bay leedahay geeridu waa la ogyahay kii laga dhintay iyo ka dhintay qudhiisu dee wuxuu u baahan yahay in loo duceeyo oo duco laga dabageeyo u baahan yahay waalidka dhintay dadka dhintay ee aan wada garanayna ee ehelka ah ee qaraabada ah ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisii ha siiyo jannatul firdawsina aclaa ha ku casuumo oo ha naga aqbalo ergada xilliga rabadaan baynu joognaa xilli fiican baynu joognaa waxaa kaloo jirta walaalayaal aad ogtihiin gobol baynu ku nool nahay gobolkan geeska Afrika siyaasadda herdamaya bari dhaweed waxa la oran jiray markii ay siyaasadii socotay ee sheeg oo abay hogaaminayay waxa la oran jiray fursad baa ku jirta geopolitical ka isbedelay Soomaaliland way taagan tahay lamay jaan qaadin hadaba waa lagu canaana jiray waxaan qabay siyaasaddaasi may ahayn mid inoo saalix ama inoo ahayn
mid inaga soo horjeeday ahayd sida u shaqeynaysa iyo sida u socotayba maanta laakiin ilaahay wuxuu qadaray siyaasadda maanta socota ee gobolka ka socota waa mid inoo saalixa Somaliland oo la rabo Somaliland inay si dhow uga shaqeyso oo sidan si ka duwan ay uga shaqeyso waxa weeye quwa ogtihiin quwadihii waaweynaa meeshanu deganaa waa strategic quwadihii waaweynaa ee dunida ayaa ku soo hordamaya waxa weeye laabta lagu wada hayaa laguma dhawaaqin laakiin waa meesha dunida meelaha ugu muhiimsan ayay ka mid tahay iibinteeda iyo suuqgeynteeda iyo ka dhaadhicinteeda iyo galaangalkeeda waxa laga rabaa xukuumadda inay la shirtagtaa laga rabaa warqad maalin dhaweed ay xukuumaddu qortay aad bay u fiicnayd laakiin warqadaas oo kaliya maaha waa in guddiyo la diraa waa in waraaqo fara badan la qoraa waa in ingiriiska Mareykanka si toos ah aynu ugu garnaqsanaa oo habeen iyo maalin aynan ka daalin systemkan cusub Mareykankana si ay uga dhaadhicin lahayn qadiyadeena iyo dimuqraadiyadda halkan hawsh ka marayno iyo waxyaalaha inaga dhiman oo dhan waa muhiim inaynu ka dhaadhicina waa ogtihiin Soomaaliya dhibaato ka jirta walaalaheen ilaahay dhibaatada ka dulqaado culays ma haysta waa culays maamul weey waa culays ka dhashay kursiga weey oo maartay ugu sareeya dalka waxaan rajeynayaa insha Allah in ilaahay subhanahu wa ta'ala marka gobolkan aynu ku ilaahay inagu beeray geeska Afrika waa meel siraac ka samaysan oo quwada ku hirdamayaan waligiina muu degin sida uu samaysan yahay waxa uu eg tahay deganaanshihiisu inuu aad u fog yahay ilaahay buqacda uu nadajiyay ee Soomaaliland la yiraahdaa nabad buu ilaahay inagu siiyay oo dhibaatada ugu badan waxay noo timi intii gumaysto yimi iyo intii ka dambeysay ayuu noo timi intii iminka 30 sano aynu haysanay waa intaynu baraaraha ku jirnay ee dadku ay soo kabsanayeen ee maanta ma taqaan halkaynu marayno nin xanuunsanaya oo aan waxba kala ogeyn mooyaane qofku uu garan karo intaynu soconay intaynu jirnay inta maynaan socon intaynu hadda soconay boqolaal sano aynu dhulka ku noolay ilaahay nagu beeray inta aynu 30 sano kasbanay inagu inu gacanteenu ku qabsanay cidi aan inoo qaban hore maartay umay dhixin marka waa sidaas oo inu kala sii dhawaanaa oo dawladnimadeenu hagaagtaa oo sharciyadeenu hagaagtaa oo institutionadeenu dhismaan oo aynu dalkeena iimaansanaa markaas aynu walaalayaal wax qabsan karnaa waxna noqon karnaa adduunkana dawladdu wax lagu yahay marka dawladnimadaadu hagaagto quweysato ayaad wax noqonaysaa dhibaatada ka socota Soomaaliya walaalaheen sidaan horeba u sheegay waxaan Ilaahay uga baryayaa subhanahu wa ta'ala inuu ka dulqaado waa dhibaato siyaasadeed waa mid keeni karta mashkilad aad u weyn keeni karta inaga culays inuu keeni karta siyaasadeed waayo waa walaalaynu nahay isku jiid baynu nahay daris baynu nahay dadkooda iyo dhibaatadooda weyn soo gaaraysa marka in Ilaahay uu ka dajiyo oo ka dhameeyo oo ay ka dhamaato oo wadadooda ku soo noqdaan caadiga ahayd ayaan iyagana Ilaahay uga baryaynaa subhanahu wa ta'ala marka waxa la Soomaaliland hadda waxa socda ay dan ugu jirta wixii maalintii hore socday maaha ee afduubka ahaa kan maanta socda danba ugu jirta inay iyadu garwadeen ka noqoto oo iyadu ay ka shaqeyso sidii ay maartay ugu soo jeeyn lahayd indhaha caalamka halkan ay ugu soo jeeyn lahayd dawladdu waa inay ka shaqeysaa taa daba gashaa indha fayo ku eegta insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo Abdullahi Abdul Maasantahay sida loo waxaad ka tirsatay hoggaanka xisbiga wadani guddiga fulinta ka mid tahay mas'uuliyadiisa sarsaraatay dhawaan shirkii golaha dhexe xisbiga dhacay waxaad sheegtay musharaxta inkastoo markii dambe tiriwaan ka tanaasulay waxaad warbaahinta u sheegtay inaad shirka ka qayb galayso dadkuna waxay is weydiinayaan maadaama mas'uuliyadda xisbiga ahayd maxaa keenay inaad shirkii golaha dhexe ka qayb galayso horta Cabdiraxmaan adeer sheekada aan kugu noqday waxay ahayd maalin iyo 2 cisho gudahood 27 saacadood bay dhacdadaas ahayd markii gudoomiyuhu kaga dhawaaqay fulinta gudaheeda inuu musharax yahay كورنا ما نوجين ماشي أنا دي قرشان ولا هينو حسبي بانو هينو ركحنا لبانو هينو هنكينا إني نموتشنو أو كشقينا بان دوريني مركي نقطة إني هوست نجس أو كشي أرنت هاسي وأنا كانوا كل واقعي طلب بدن كذب وضافه الدنيا ده يميل بكتمه ومركي دمر موقترنتي وحالي عبد الله يو وحمو قدا متشرانه وحبا هسوق ما ارتقب قبسيغا iyo maanta duldulkaasi waxba idin tari maayo marka tii waan qaatay waayo way muuqatayo 22 ka iminka halka odaga iminka loogu caano shubay doorasho maanta muuqata oo uu halka ku tagayaa de ma jirtay warba ka dambeeya horta taa waxa weeye waa xagga hawsha sida iminka u dhacday siyaasad ahaan ee una socoto way aniguna hankaygi waa sidiisii
xisbigan iyo dadkan oo xisbigu taageera oo ah xisbi aad u ballaaran oo gobollo Soomaaliland aad looga taageero jaanis fara badanna leh waxaan jeclahay in aanu badbaadino oo u guuleysto hadduu Ilaahay yiraahdo marka taa hankeygii iyo ra'yigeyga horta waa meeshiisi kaas sida ogow waxa kale oo yimi maalintii dhaweyd waa runta shirka kama qayb gelin ninka mas'uulka ah waa talo ku nool taladii markaan rogrognay waxa ii soo baxday meeshii maadaama aan musharax ahaa maadaama musharaxnimadeeda si wada socda oo aan uga tanaasulay aan jirin wali ay fartu ii taaganta meeshiina aan hadal ku lahayn aan markaa ka jeedinayo de sabab aan markaa u dhax fariistaa iimay muuqan waxaan idhi shirka xisbigan Ilaahay barakeeyo oo hay noo shaqeeyo haya xal salaadii hadeeda markay gaadhana de golaha dhexe markaad fursad ku leedahay ay ku fiican tahay inaad ka dhax muuqato marka fursadii baan ii muuqanay si kale ogamaan maqnayn shirkana waan u duceeyo in Ilaahay uu inoo nabad inoogu dhameeyo waana inoogu dhamaado oo insha Allah iminka waxyaalo badan baa u baahan inaan reform gareyno oo ka shaqeyno oo xisbiga gudihiisa lambarka golaha dhexe sidoo uu sameeyay in kastoo lambarka inuu isla cayina maalintii hore laakiin waxyaalo badan oo inaga inoo hoosa gacmo gal jiray hoos baa loo meeraa waxyaalo badan oo musharaxnimadeeda markii dambana aan dib ugu joogsaday ayaa jiray laakiin golaheeda iyo meesheeda ayaan keeni doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo arrinku waa sidiisii waxaan rajeynayaa inaynu guul ku dhameysano guulna insha Allah ay Soomaaliland noqoto hadduu Ilaahay yiraahdo waayo dalkan walaalayaal waxaanu doonaynaa in hoggaan badbaadin kara oo badbaadino wax ka qabano ayaan u baahnaa taana insha Allah habeenii maalin ka saxan meynay waanu ku taagan hadduu Ilaahay yiraahdo عبد الله هذا الكلام حكى مقطع إن الدليل سو مشاركين ثلاث ضرب حسبك هذه اللي بدي بيقولوا واحد يقول ترين الحرير لله هذا حكومة ما دام الحسب قاعد كتر سنة المسؤولين تيجوا قالوا يصير دليل يصير يلا راه كان هذا حق حكومة هذا دوسيس هذا حسب قاعد الصعدة أنا قدرت كأي قانا وسؤال في عنه تاريخ الحوي ننبر برا ما هي أبا وما قيب سما حكومة هذا دون يدو حكومة دينيو صباح داسن جري كراي نقون كراي كم نقون كراي واحد يقدر تاجرنا مجرين لكن وحن دور بضي نظام كان حسب جن وتاريخ دي سعد أكتهي ومعنتي اللي سميني بدك الرجل سميه أنا هاي ومعنتي حاج عبد الكريم الله يرحمه عبد ورابع ونوعها قضية وندح في اللي تدبها بين الضد السعودي waxaan ninkii afayeenka ahaa ee dhinaca kale ka soo jeeday iyadoo wadani aanu jirin xaajigu markuu inoogu ku gabagabeeyay war u cidna sideeda u daaya idinkuna mid furta waan idin duceynaynaa ducaan idin raacina xisbiyada Soomaaliland la socota ee hogaankooda qofka siyaasiga ka dhaxay xisbiga ka tirsan hoggaanka xisbiga u dhaliilo ama nidaamkiisa in kasimidahashiisa inta badan mugdi la geliyo rajaynta laga ka qabteen xisbiga ku sii jirta maadaama dhaliishada bisuulitiisa والله هرتا dhibaatadaas aad sheegtay way jirtaa oo xisbiyadu ma korona oo waxay ku urursan yihiin gacanta hal qof ama ay ku urursan yihiin laakiin waxaan taageeraynaa bal inay koraano ay dhaafaan gacanta hal qof insha Allah aan taageeraynaa saaxiibkay Cabdiraxmaan waxaan filayaa inuu taa ka gudbi doono oo ogolaan doono masaaxo lagu la tartami doono oo ogolaado oo aanu raadkii hore xisbiyada hore aan raacin taa aanu dooran u doorto inuu ogolaado in masaaxadaasi ma taqaana muuqata oo ogolaado in lagu la tartamo insha Allah ibada babaxshe nidaal cidihi fino habar laga dhawrayo halye qaran baatahe halye qaran baatahe babaxshe nidaal cidihi fino habar laga dhawrayo halye qaran baatahe halye qaran baatahe